bandhigani lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa ahaa mid ay qabatay ayaan dhalad fashion oo ah gabar dhalinyaro ah kana mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee la yimid hal-abuurka ganacsi ayaa waxa lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee dharka oo ay naqshadeysay ayaan dhalad waxaana ka soo qayb galay bandhigani mas'uuliyiin aqoon-yahano siyaasiyiin fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Nairobi sidoo kale bandhigani ayaa waxa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay gabdho bartay qaabka loo mariyo make-upka oo ka qalin jibiyay kambaniga ayaan dhalad fashion ayaan maxamed daahir oo ah milkiilaha kambaniga ayaan dhalad fashion oo ka hadashay bandhigani ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay qabato bandhig noocan ah sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii wax ka baratay kambaniga ayaan dhalad fashion oo dareenkooda ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay wax ka bartaan kambaniga ayaan dhalad isla markaana ay wax badan ka faa'iideen badan baan qabtaa waxyaabo badan buu qabtaa kambanigayga oo ka mid yihiin quruxda dumarka haday noqoto make-up inaan mariyo aroosada inaan sameeyo haday noqoto arday inaan make-up pro oo u faa'iideeyo haday noqoto collection oo dhar designer aan leeyahay inaan soo saarto haday noqoto product oo skin care inaan sameeyo skinka aan yaani gabdhaha u nuuriyo so wuxuu ku soo koobtay kambaniga ama uu qabtaa uu yahay quruxda dumarka ardayda 2019 ay ahaayeen boqol kor way u dhaafiyeen marka maanta waxa ardayda qaar safare ku maqnaayeen meeb shahaadooyinka iskuulkoodii aan dhigay inta nagala soo qayb gashan si wanaagsan baan uga qayb qaadanay si wanaagsan bayna igala qayb qaateen runtii ahaantii waan ku faraxsanahay inaan arko aniga waliba gabadha ayar ah inaan gabdhaha da'aadii wax u faa'iideeyo waxaan rabaa caalamkaas inaan la tartano gabadh ayadoo xijaaban haddana inay dhar qurux badan oo style inay xirato muhiim ah inay isqaawiso ayadoo xijaaban baan waxaan aniga dadaal weyn u galay safar badan aan u aaday inaan gabdho dhisayno qurux badan ayadoo xijaaban oo isqaawinin is asturan inay style sameyn karto aad ugu faraxsanahay inay rumoodo riyooyinkayga qaar kamid ah aad waxaan ugu madcelinayaa macallimadayda ayaan dhalad wasiir ku-xigeenka gargaarka maareynta iyo musiibooyinka Galmudug Samiira Ibrahim Cali oo kamid ahayd mas'uuliyiintii ka qayb gashay bandhigani ayaa tibaaxday inay dhiirigelinayso gabdhaha ganacsatada ah ee la yimaada hal-abuurka waxaan magaalada Nairobi uga qayb galay ayaan dhalad fashion show oo ah fashion show ay ku soo bandhigaysay alaabo ama designer ay sameysay ayaan dhalad waan bogaadinayaa waxaan u imaaday inaan dhiirigeliyo gabdhaha ganacsatada oo maxaa la dhahaa hal-abuurka leh gabar marka ay maxaa la dhahaa hal-abuur leedahay ee horumar tiigsanayso ay wax badan gaari kartaa adduunyada hadda waxa la isku dhaafay waxa waaye ganacsiga iyo horumarka inuu qof walba meel tiigsado marka gabdhaha dhalinyarada ana waxaan leeyahay mar walba hore u socdo horumar tiigsada meesha jeceshin waa gaaraysin insha Allah ganacsiga Soomaalida hablo badan oo ka najaxay ayaa jiro marka waxaan leeyahay hore u soco ayaan dhalad barnaamijkan waan bogaadinayaa Cabdishakuur Faarax Igalle Honkebel TV magaalada Nairobi maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111